بسم الله الرحمن الرحيم كلن wanaagsan qiyaartana la socota fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhamaantiinba madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qaabilay dhaxal sugaha wadanka Sacuudiga Mohammed bin Salman oo booqasho 3 maalin ah ku joogaya wadankaasi Mareykanka isla markaana ay wada gali doonaan heshiisyo taariikhi ah waxyaabaha miiska saaran waxa kamid ah dawladda Sacuudiga in loo ogolaado nuclear-ka gaar ahaan dhinaca rayidka loo isticmaalayo iyo sidoo kale in laga iibiyo diyaaradaha F-35 labadaasba waxay caqabad ballaaran ku noqdeen nidaamka Israel haddaba geedi socodka gobolka bariga dhexe iyo mustaqbalka ciidamada halkaasi maxay noqon doonaan tartan ayaa loogu jiraa diyaaradaha F-35 ee Mareykanku uu soo saaro inta aan barnaamijka wada joogno waxaan eegi doonaa Israel oo gantaalo bilaayin dollar ku kacaya ka iibinaysa wadanka Greega dal kale oo cadow ku ah wadanka Turkiga isla markaana ay soohdin wadaag yihiin arrintani waxay Ankara u arkaysaa inay tahay mid walaaceeda uu aad u sii ballaaranayo isla markaana mustaqbalka saameyn ku yeelanaysa dalkaasi Turkiga tani waxa lagu tilmaami karaa iclaaminta dagaal kale oo cusub waxay noqon kartaa in kaliya loo isticmaalo dhinaca cadaadiska dawladda Ankara warbaan idinkaga siinaya arrintaasi caawa dhinaca kale inta barnaamijka aan wada joogno wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Turkiga Hakan Fidan ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uusan aqbali doonin dawlad ka aragti ah wadanka Turkiga in laga dhiso dhinaca iyo wadanka Syria waxa uu yiri wax walba sida ay hadda u socdaan waa la aqbali karaa dadaal badan ayaan gaarsiinay wadankaasi sidoo kalena waxaynu gelinay waqti iyo dadaal badan oo saameyn ku yeelanaya nolosha dadka Syriyaanka ah iyo waliba dawladdaasi in ay dib u soo kabtaan waxaan eegi doonaa guud ahaanba dhaqdhaqaaqa ka taagan gobolka bariga dhexe ee socdaalka Mohammed bin Salman waxa uu bedeli doono iyo waliba saadaasha mustaqbalka la fiirinayo ee lagu hirinayo qiyaaray meelka adduunku waxay hadal hayaan hanaanka loo soo dhaweeyay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha wadanka boqortooyada Saudi Arabia oo hadda ku sugan wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington DC waxa uu aqalka looga arrimiyo wadanka Mareykanka ee White House-ka loo yaqaan ama aqalka cad gaar ahaan xafiiska Oval uu kula kulmay madaxweynaha wadankaasi Donald Trump arrintan oo si weyn iminka hadal haynteeda u taagan tahay dawladda Mareykanka waxa hor yaala laba malaf oo waaweyn oo dawladda Sacuudiga ay raadinayso in la hirgeliyo mid waxay tahay in dawladda Riyadh loo ogolaado dhinaca nuclear-ka iyo waliba in loo isticmaalo sifo rayid ah sida dawladaha kale adduunka qaarkood ay u isticmaalaan iyo in laga iibiyo diyaaradda F-35 laakiin qaar kamid ah dadka arrimahan faaqidaya waxa ay leeyihiin labadaba waxa ay saameyn ku yeelanayaan nidaamka Israel taas oo xoojinaysa xaaladaha halkaasi ka taagan oo u muuqda in ay adag tahay marka dhinac kasta laga eego waa tahay haddaba qaar kamid ah wargeysida waaweyn warbixinada ay qorayaan ayaan fiirinayaa waxaa si rasmi ah loo shaaciyay in Mareykanka uu ogolaaday iibinta diyaaradda casriga ah F-35 ee boqortooyada Saudi Arabia laga iibinayo taasi waxay dhalisay xilli uu socdo booqasho ama imaanaysa ay dhacaysa xilli uu socdo booqasho dhaxal sugaha Mohammed bin Salman uu ku joogo magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka halkaasi uu kula kulmay dhigiisa ama hogaamiyaha wadanka Mareykanka Donald Trump booqashada ayaa lagu sheegay inay ku jiraan heshiisyo dhaqaale oo gaaraya 600 bilyan oo dollarka Mareykanka heshiisyo difaac iyo wada shaqayn Mareykanka iyo Sacuudiga ee ku saabsan barnaamijka nuclear-ka oo loogu talagalay isticmaalka qaabka rayidka sida tamarta iyo biyaha nadiifka Sacuudigana uu raadinayo Sacuudiga wali waxa uu ku adkeysanayaa inuu xuquuq u leeyahay ururinta iyo kaydinta uranium-ka taas oo si cad ku saabsan baa la yiri mid u dhiganta dawladda Iran oo kale xilli Sacuudiga uu walaac badan arrintaasi ay ku haysay in laga hor yimaado haddaba arrintan waxa la leeyahay walwal xoog leh ayay ku haysaa Israel sida ay leeyihiin wargeysada qaar Israel waxay muujisay cabsi iyo carqalad siyaasadeed oo xoogan maadaama iibka diyaaradda F-35 ee Sacuudiga uu dhaawici karayo awoodeeda dhinaca duulimaadka cirka gaar ahaan gobolka
waxaana ay sidoo kale taabanaysaa baa la yiri taliska sare ee ciidanka Israel oo ku baanaya diyaaradahaasi iyaga oo qura inay ka haystaan gobolka bariga dhexe. haddii Sacuudi Carabiya ay hesho F-35 waxa hoos u dhacaya awoodda qarsoon ee ciidamada Israa'iiliyiintu ay uga tallaabi jireen hawada wadamo fara badan oo Carbeed sida Iran marka ay duqeynayaan Yemen iyo meelo kale. waxaa jiri karta baa la yiri cabsida wax soo saarka shirkadda diyaaradaha samaysa ee Mareykanka inay macquul tahay dalabka Sacuudiga taas inay keento dib u dhac ku yimaada diyaaradaha Israel ay amartay in laga iibiyo in Sacuudiga laga iibiyo Israel u aragtay inay qatar weyn ku tahay laakiin ay hadda dadaalo badan ku bixinayso. barnaamijka nuclearka ee Sacuudiga waxa uu jabin karaa bay leedahay Israel xayiraadda nuclearka guud ahaan gobolka bariga dhexe isla markaana waxay ku dhiirigelinaysaa dalal kale in ay isku raacaan tilaabooyinkan inay qaadaan. haddaba wargeysyada qaar waxa ay banaanka keenayaan waxyaabaha tanaasulaadka ku sameynaya dowladda Mareykanka. si gaar ah qabiir Israa'iili ah oo lagu magacaabo Yoel Kosinski ayaa waxa uu ku nuuxsaday in Shiinaha uu door weyn ku leeyahay in ay isbedelaan isla markaana Mareykanku uu doonayo in uu ka fogeeyo Shiinaha qaliishka. taasina waxay sababtay in Washington ay furto heshiisyo ay horay uga diiday dowlado fara badan inay la samayso waxaana ay ka baqaysaa dowladaha dhaqaalaha badan ee adduunka haysta inay u wareegaan dhinaca Shiinaha haddii dalabaadkooda la fulin waayo taas oo hadda taabanaysa Israel. haddaba maxaa arrimahan ka soo baxaya iibka diyaaradda F-35 ee Sacuudiga waxa uu dabka ku shubay tartanka hubka ee bariga dhexe. Israel waxay ku baaqaysaa in ay luminayso awoodeeda cirka iyo sirdoonka labadaba. barnaamijka nuclearka Sacuudiga waxa uu noqonayaa isbedel taariikhi ah oo saameynaya amniga gobolka. booqashada bin Salman ee Washington waxa ay yeelan kartaa saameyn istiraatiiji ah oo waqti dheer ah gaar ahaan marka la eego xuquuqda uraniumka iyo heshiiska difaaca cusub taas oo hadda dowlado fara badan ay wadnaha farta ku hayaan. falanqayaasha istiraatiijiga ah waxa ay leeyihiin arrimahan waxa ay muujinaysaa sida Sacuudiga uu u yahay dowlad lama taabtaan ah marka dhinac kasta laga fiiriyo guud ahaanba tilaabooyinka dhinaca Mareykanka loo qaaday. isla wararka bariga dhexe ayaan sii eegayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu qaabilay bin Salman. haddaba qaar ka mid ah wargeysyada waaweyn ee Sacuudiga ka soo baxa waxay leeyihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Salaasaa ku qaabilay golaha aqalka cad ee Washington dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman oo booqashadiisii ugu horeysay Mareykanka tagay sanadkii laga soo tiriyay 2008. inta lagu guda jiro booqashada labada dhinac waxay si weyn diiradda u saari doonaan ama ka dhici doona Oval. waxaa sidoo kale la filayaa in Ameerika uu ka qayb galo qado iyo casho sharaf uu ku marti qaaday madaxweyne Trump. heshiisyada istiraatiijiga ah iyo sida ay u bedelaan qaabaynta nabadda ee bariga dhexe waa waxa kale ee sida weyn indhaha loogu hayo. haddaba su'aasha taagan waxay tahay Sacuudiga ma noqon karaa saaxiibka istiraatiijiga ah ee bariga dhexe si ka duwan Israel oo hadda isku arkaysa saaxiib gaar ah oo Mareykanka uu ku leeyahay gobolkaasi. haddii aan isla wararka bariga dhexe ku sii socda dowladda Greek ayaa gantaalo casri ah ka iibsanaysa Israel waxaana ku baxaya $100 bilyan oo dollarka Mareykanka ama $100 milyan oo dollarka Mareykanka haddii aan si kale u yiraahdo. sida uu qorayo wargeyska lagu magacaabo Raayilyo dowladda Greek ayaa ku jirta wada hadallo heer sare ah oo ay la yeelanayso Israel oo ay ku iibsanaysa nidaamyada gantaalaha casriga ah kuwaas oo qayb ka ah qorshaha dhismaha ballaaran oo lagu cusboonaysiinayo nidaamyada difaaca hawada ee Greek sida ay xaqiijiyeen laba mas'uul oo xog ogaal ah oo u waramay wakaaladda wararka Reuters. Greek ayaa qorsheynaya hubaynta cusub in uu u qoondeeyay ama u qoondeynayo 28 bilyan oo euro ilaa sanadka 2036 si ay u casriyeyso ciidamadeeda kadib markii si buuxda ay uga soo kabsatay dhibaato dhaqaale oo wadankaasi ku dhacay intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2018. nidaamyada difaaca ayaa waxay yihiin kuwa mucjiso ah sida la sheegay
in ka badan 300 bilyan oo euro ayaa loo qoondeeyay dhismaha nidaam difaac oo hawada ah oo cusub in la iibsado ilaa 36 gantaal oo culus oo ay soo saarto shirkadda Israel oo sida weyn arrimaha tiknoolajiyadda dagaalka uga shaqeysa ee la yiraahdo Elbit Systems iyo waliba in shirkadaha difaaca Greega ay qayb ka qaataan mashruucan ilaa 25% qiimaha nidaamayntan ayaa gaaraya 650 milyan oo euro sida dawladda Greega ay hadda qorsheedu yahay qorshahan difaaca waxa uu saameyn ku yeelanayaa dhinacyo kala duwan waxaana loo arkaa isbahaysi difaac oo ka dhana wadanka Turkiga oo labada dhinacba ay si weyn isku hayaan Israel waxa ay doonaysaa in markan ay si weyn u saameyso dhinacyada kala duwan ee ku loolamaya gobolka bariga dhexe isla markaana waxay abuuraysaa cid kale oo ka hor imaanaysa dawladda Turkiga isla wararka bariga dhexe haddii aan ku sii eegana Israel waxay soo dhaweysay ansixintii golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee baaqi Trump hasaate waxa la isweydiinayaa mustaqbalka dawladda Falastiiniyiintu ay leeyihiin sidee noqon doonaa haddaba qaar ka mid ah wargeysyada Israel oo ka mid yahay Israel Hayom waxa uu leeyahay marka laga yimaado golaha ammaanka ansixintiisa iyo diidmada Falastiiniyiinta iyo soo dhaweynta Israel ee heshiiskaasi waxay su'aali ka taagan tahay sida uu noqon doono muuqaalka mustaqbalka dawlad Falastiini ah Israel Hayom waxa uu leeyahay waxa koobnaan doona dhul ku yaala daanta galbeed oo kaliya in laga dhiso dawladda Falastiin waxay noqon doontaa dhul si buuxda u diilimaysan oo la soo hodimeeyay oo aan lahayn ciidamo iyo hub culus toona qorshe horumar iyo dib u habeyn dhan kasta ah ayaa laga doonayaa dawladda Falastiin gaar ahaan la dagaalanka xagjirnimada iyo waliba bedelka manaahijta waxbarashada oo taabanaya Israel joojinta gabi ahaanba lacagaha lagu wareejiyo maxaabiista iyo qoysaskooda qaraarka rasmiga ah oo Falastiiniyiintu ay kaga tanaasulayaan xuquuqda soo noqoshada oo dhulkooda ay dib u qaadanayaan in la sameeyo diidmada Israel ayaa hadaba la isweydiinayaa ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa gudaha nidaamkiisa ku wajahaya cadaadis kale oo xoog leh oo uga imaanaya dhinaca Israa'iiliyiinta xisbiga midigta fog waxa uu leeyahay Israel weligeed ma ogolaan doonto dhismaha dawlad Falastiini ah sidoo kale hogaamiyaal badan oo reer Israel ayaa sheegay in aqbalaadda dawlad Falastiin ay noqon doonto abaalmarin lagu sameeyo argagixisada taas oo ka timi wajigii dagaalka ee Gaza sida daraadeed Israel ma aha in wax tanaasulaada ay ka samayso arrimahaasi sida ay ku doodayaan ugu dambeyntiina wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Turkiga Hakan Fidan ayaa maanta hortagay guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka wadankaasi iyadoo laga hadlayo dhaqaalaha amuraha dibadda ee Turkiga ku baxa waxana uu sheegay hadal in muddo la isweydiinayo oo ah damaca dawladda Turkiga ay ka leedahay Syria waxa uu yiri marnaba ma aqbali doono dawlad aan aragtida Turkiga ku shaqeynayn in Syria ay timaado taas oo ka imaanaysa amnigeena qowmiga ah waxa uu sheegay in wadankaasi ay u fureen xiriirada dibadda iyo waliba in amniga qaranka wadankaasi ay ka shaqeeyeen oo ay si weyn u soo laabanayaan dhawaana la qorsheynayo buu yiri dhismaha ciidamo wada jira oo kooxaha waysan ay ku biirayaan oo loo aqoonsan doono ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Carbeed ee Syria akhyaartayna la socotay inta ayaan ku gabagabeynayaa tabintan